saaxiib yaal kusoo dhawaada Crypto Somali Academy. Beriyahan waa kala maqneen, waxaan ku mashquulsaneen arrimihii akademiyadda iyo howlo family ayaan ku mashquulsanaa. Waxaan filayaa inay u daari doontaan. Asxaabta waxaan rabaa inaan weydiiyo Telegram channel aan xogaha degdeg ah ku wadaagno ayaa noo sameeyay. Profile-ka ayaan soo saari doonaa halkaas uga soo biir, maadaama groupkeeni community public ahaa aan maaragtay soo wadno, taasna ma ogaanina. Asxaabta haddaan ku socdo update-ka suuqa, sida u jeedaan suuqa aad iyo aad u fiicnaa last 2 weeks, waliba isbuucii soo dhaafay markuu hadlay ninka odaga Jerome Powell. Haddaa fiiriso suuqa market cap-kiisa aad iyo aad u fiican yahay, oo sida u jeeda suuqa wax ka badan 2.2 trilyan ayuu market cap-kiisu marayaa. 40 saac soo dhaafay suuqa lacag fiican ayaa soo gashay, dominance-guna 56 ayuu cagacagaynayaa. Haddaan fiirino dhinaca iyo Fear-Greed-ka sida u jeedaan waa 56, waa natural, Fear-na ma ahan, Greed-na ma ahan ayay ka dhigan tahay. Dhinaca qiimayaasha BTC sida u jeedaan 64,000 ayay maraysaa, maadaama BTC labadii isbuuc u dambeysay ay aad iyo aad u daadinaysay. Haddana madaxa ayay soo qaaday kadib hadalkii gudoomiyaha federaalka Mareykanka Jerome Powell, iyadoo gaartay ilaa 65,000. dhinaca kale Solana 159 ayay maraysaa. Haddaa fiiridid Dogecoin oo kale 11 cent ayuu marayaa, ton $5 ayuu marayaa. Si fiican ayaa loo xasuuqay maadaama odagii la xiray. Sidoo kale Cardano 38 cent ayay maraysaa. Haddaan fiirino dhinaca iyo newsyada, maantay wax news ma jiraan sida u jeedaan. Sidoo kale haddaan fiirino newska maanta u weyn adduunka waa ninka odaga ah Buffett oo lagu xiray Faransiiska. Haddaan fiirino update-kiisan dul taagno, newskan wuxuu sheegayaa in uu arrinta soo farageliyay Vladimir Putin, isagoo Faransiiska u baaqay in ninka xorriyadiisa la siiyo. Horey ayay isku qabteen Buffett iyo Putin, kadib isagoo iskaga tegay Russia. Ninka odaga ah waa nin u ololeeya waxaan loo yaqaano freedom speech, oo qof yacni xorriyad dareemo. Waxyaabaha lagu haysto wax kale ma ahan, waa maadaama ninkan dhalinyaro u yahay waxyaabahan oo maaragtay galbeedku ay dadka ku xiraan oo ka soo horjeedo. Yacni Telegram-ka oo maaragtay qofku aragtiisu dhiibi karo, sida yacni Twitter-ka iyo Facebook-ga ma ahan, oo yacni maaragtay xitaa maaragtay aan laga hadli karin muslimiinta walaalahan reer Palestine ee gumaada xitaa aan laga hadli karin. Waa aragteen sida boostiyada looga saarayo. Marka waxyaabaha lagu haysto ninkan waxyaabahaas ayaa ka mid ah. Waxaa jira eedeymo ay u sameeyeen sida inuu maaragtay sameeyo kala gudbinta daroogada iyo qarinta dambiyada iyo lacag dhaqidda. Waxyaabo noocaas ay ku eeday rabaan sida xoguhu ay sheegayaan. Sidoo kale ninkan waa nin dhalinyaro ah, sidoo kale billionaire ah. Sidoo kale ninkan sa ogtihiin dhawaan ayuu sameeyay blockchain-ka Ton ayuu sameeyay, oo Notcoin iyo Toncoin labadaba ku dhisan yihiin. Marka asxaabta haddaan fiirino dhinaca iyo crypto bubble-ka sida u jeedaan, Ton waxaa la daadiyay 15%, Notna wuxuu daadsan yahay 22% ayuu daadsan yahay. Saameyntan guudna waa arrintan oo ninka odaga ah. Sidoo kale haddaan fiirino dhinaca iyo on-chain-ka sida u jeedaan, BlackRock maanta portfolio-dooda waa cagaar oo waxay ku jirtaa profit 64 milyan ayay ku jirtaa sida u jeedaan. Sidoo kale ETF-yada dhammaan waa sidaas. Marka asxaabta suuqa laga faa'iideysto. Haddaan fiirino dhinaca iyo technical-ka, haddaan fiirino BTC 61,000 derbiga markay jabisay 65,000 ayay ku nasatay sida u jeedaan. Waxaan filaynaa waxay tahay in level-kan 68,000 ay gaarto beriyaha soo socda. Midaan filayna waa midaas inta ka dhiman bishan August. Sidoo kale hadalkii Jerome Powell waxaa ka mid ahaa inuu dhimi doono waxaa loo yaqaano interest rate-ka kadibna bisha 9aad siduu sheegay. Haddii la dhimo interest rate-ka waa midaan sugaynay oo suuqyada dhan cirka ay geli doonaan. Marka asxaabta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa.